Ramadan wanaagsan saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan halkan waa janalka dabagalka wararka waxiliyadii aad inooga gabarteen inaan idiin soo baahino war wixii dal iyo daafaha caalamka naga soo gaaray wararkan idiin hayno kuwooda ugu doorka roonna waxaa ka mid ah wasiir Goodax Barre oo sheegay in arrimo siyaasadeed iyo dhaqaale ay ka dambeeyaan ruuxii fashiliyay imtixaankii dawladda Soomaaliya xildhibaanada baarlamaanka oo ansixiyay sharciga batroolka oo dood weyn ay ka keeneen maamul goboleedyada waxaan idiin soo gudbin doonaa hadaladii xasarada kiciyay ee wasiir Goodax Barre uu sheegay Abriil ilaa iyo bishan May Somaliland oo si kulul kaga jawaabtay doorashada 2021 ka dhacaysa Soomaaliya in Somaliland ay qayb ka tahay sargaal sare oo ka tirsan Al-Shabaab oo isku soo dhiibay ciidamada Jubbaland guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka oo codsaday in laga raro madaxtooyada Soomaaliya lana dejiyo goob kale ogow sababta ka dambaysa arrinkan qorshe uu damacsan yahay Axmed Madoobe oo si xoogan looga hor yimid shirkadda Google oo Soomaaliya u soo bandhigtay mashruuc internetka lagu gaarsiin karo miyiga iyo meelaha fogfoga madaxweynihii hore ee Galmudug oo taageeray qadiyadda gooni isu taaga Somaliland iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya oo dad uu casuumay lacag qaali ah uga iibiyay cashadii uu ku martiqaaday intaasi saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu doorkaroon warka janalka dabagalka wararka haddii aad nagu cusub tahay ku soo biiri janalka adigoo subscribe saaraya kana mid noqo saaxiibada joogto oo 24 saac wararka degdega xogaha qarsoon faallooyinka warbixinada iyo dhacdooyinka siyaasadda Soomaaliya sida weyn looga hadalhayo ee halkan aan ku baahino kuma hadsanid in aad nagu soo biirtay haatan warkiyo fidsan Abdullahi Goodax Barre oo ah wasiirka waxbarashada xukuumadda Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay si cad u faahfaahiyay sababihii keenay in uu baxo imtixaankii dugsiyada oo wasaaraddu ay qaadaysay Goodax Barre ayaa sheegay in imtixaanka ay ku bixiyeen juhdi fara badan inuusan banaanka u bixin isla markaana kaamirooyin ay ku xireen halka lagu daabacay sidoo kale meel kasta oo la geynayo inay mas'uul ka ahaayeen ciidamada booliska Soomaaliya wasiirka waxa uu sheegay in imtixaankaasi uu ka baxay xarunta Balanballe una sheegay in faahfaahinta arrintaasi laga sugayo ciidamada booliska oo hadda ku guda jira baaritaano dheeriya wasiirka ayaa sheegay in ninka dhalinyarada ah ee imtixaanka bixiyay uu horay ula shaqayn jiray wasaaradda isla markaana uu ahaa nin lagu kalsoon yahay balse wuxuu sheegay in arrintan ay tahay mid la xiriirta dhanka siyaasadda sida ay sheegeen booliska imtixaanka waxaa sanadkan laga dusiyay magaalada Balanballe ee hoos tagta maamul goboleedka Galmudug Abdullahi Goodax Barre ayaa sheegay in Jamaaluddin Axmed Xirsi oo 29 sano jir ah uu la kulmay cadaadis dhaqaale iyo mid siyaasadeed waa run waxa qof walba isweydiin karaan war maxaa ka faa'iido annaga wasaarad ahaan inaan dadaal farno ayaa qabanna ayaa horta waajib nagu ah waa garan kartaa 104 meelood dadkii aan u dirnay hal kamida yani waxay ka yartahay 100kii hal ay ka yartahay qofka khiyaanada sameeyay marka percentage aan loo fiiriyo ilaaha wax ka faalo qaadi karo laakiin annaga ninkaas nin sababta hore shaqeeyay oo kalsooni badan ku qabno waxa waa la socotaa wadankeena siyaasad badan oo mataqaana gufaan ayaa socoto waa shaqo booliis ku taalo laakiin annaga wasaarad ahaan waxaan tuulsanahay marka aan naqaano qofka aan naqaano iyo horey soo loogu shaqeeyay wasaaraddu ka shaqeynayay waxaan isleenahay iyadoo ay shaqo booliis ku taalo ay toona rabin inaan ka hor dhaco waxaan isleenahay waa wax siyaasadaysan ahaa oo ninka odaga wasaaradda u shaqeynayay culeysyo badan oo siyaasadeed iyo dhaqaale meydii la saaray marka insha Allah anaga dadaan codkaasina waxa uu ahaa wasiirka waxbarashada Soomaaliya Abdullahi Goodax Barre oo la hadlayay barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee VOA-da isagoo markii ugu horeysay faahfaahiyay habka uu ku baxay imtixaankii dawladda xildhibaanada baarlamaanka ayaa ansixiyay sharciga batroolka xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya
ayaa ansixiyey sharciga batroolka oo maalmihii lasoo dhaafay ay ka doodayeen. sharcigan oo ay soo gudbiyeen golaha wasiirada ayaa ka mid ah sharciyada ugu muhiimsan ay sida weyn u danaynayso xukuumadda uu hogaamiyo ra'iisul wasaare Khayre. 154 xildhibaan oo soo xaadiray kulanka ayaa waxaa cod gacantaaga ku ogolaaday 150 xildhibaan, halka 4 xildhibaan ay diideen. maalmihii ugu dambeeyay waxaa socday olole ay waday xukuumadda Soomaaliya oo ah sidii sharcigan loo ansixin lahaa. shirkii natiijo la'aanta ku soo dhamaaday ee dhawaan ka dhacay magaalada Garowe ayaa qodobadii isku mari waayeen madaxda dawladda iyo kuwa maamul goboleedyada ay ka mid ahaayeen arrimaha batroolka. ansixinta sharcigan ayaa ku soo beegmaya iyadoo bisha November ee sanadkan la filayo in la bilaabo bixinta blockiska goobaha shidaalka laga sahmiyay oo shirkadaha shidaalka ay iibsan doonaan si ay u bilaabaan shidaal baarista. dhanka kalena hadaladii xasarada kiciyay ee wasiir Goodax uu sheegay April ilaa May ayaan markan idiin soo gudbinaynaa. wasiirka waxbarashada Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre oo soo saaray war-saxaafadeed ayaa sheegay inuu ka xun yahay hadal uu ka jeediyay magaalada Jowhar oo ahaa inuu fashilmay imtixaankii maamulka Puntland. qoraalka waxa uu ku sheegay in la siiyay xog qaldan, taasoo ahayd in madaxweynaha Puntland uu Garowe ka sheegay in la jabsaday imtixaanka Puntland. sidaasna uu u sheegay ardayda Jowhar ee uu khudbadda u jeedinayay isagoo aan iska hubin hadalka. wararka qaar ayaa sheegaya in hadalkan raaligelinta ee Goodax Barre ka soo baxay uu yimid markii qadka telefoonka ay ku wada hadleen madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre, taasoo laga dalbaday Goodax in raaligelin uu ka bixiyo hadalkaasi ka soo yeeray. haddaba laga soo bilaabo April ilaa May wasiir Goodax ayaa ka dhawaajiyay hadalla xasarad kiciyay kuwaas oo intooda badan raaligelin uu ka bixiyay. wasiir Goodax oo ka mid ah xubnaha si weyn u difaaca dawladda Soomaaliya ayaa cadaadis xooggan kala kulmay xukuumadda, waxaana dhowr jeer lagu qasbay in raaligelin uu ka bixiyo hadalla aan munaasab ahayn oo uu sheegay isagoo weliba ah wasiirka waxbarashada dawladda Soomaaliya. haddaba waa kuwan dhammaan hadalladii uu sheegay Goodax Barre ee xasaradaha kiciyay. waxa uu yidhi Goodax Barre, baarlamaanka waxaa ka buuxa xubno al-shabaab, kaasaana ka mid ah isagoo markaas farta ku fiiqayay xildhibaan agtiisa marayay. waxaa kaloo uu yidhi Puntland imtixaankii waa ay diiday, iyada ayay u taallaa meesha shahaado ay kala imaanayso, waana nasiib darro. waxaa kaloo uu yidhi aqalka sare ayaan kala shiray arrintii Puntland waana dhammaysanay. waxaa kaloo uu yidhi waalidiin ayaa ilmahooda imtixaan u gaday. sidoo kale waxa uu yidhi waxaan soo arkay arday uma ekayn, waa laga buuxay. waxa uu sidoo kale yidhi imtixaankii Puntland waa uu fashilmay. sidoo kale waxa uu yidhi waan ka xumahay hadalkii aan Puntland ka sheegay, waana war aan faafiyey anigoo aan hubsan. dhanka kalena sargaal al-shabaab ka tirsanaa ayaa isku soo dhiibay ciidamada Jubbaland. sargaal ka tirsanaa ururka al-shabaab ayaa isku soo dhiibay ciidamada Jubbaland ee ku sugan deegaanada Jubbooyinka. sargaalkan ayaa la sheegay inuu isku soo dhiibay degmada Jamaame, waxaana isku soo dhiibay ciidamada Jubbaland ee ku sugan deegaanka Baarsanguuri. Sharmaake Cabdinaasir Axmed oo ah sargaalka isa soo dhiibay ayaa sheegay inuu garawsaday kasoo bixista al-shabaab, waxaana uu yidhi rafaadka intaas sano dadku hayeen iyo aniga intaan kusoo jiray waxay ugu kaliftay inaan kasoo tagay iyo marxalad adag aan soo arkay oo ilaha booneen aniga inaan kusii jiro meeshaas. waxay ugu soo qasbaarta hore qof walba mar u qoran tahay horta hore wax walba inuu soo dhameeyo, ma fahmin. marka ani mar hore iga go-oneed, laakiin hadda waxaa waaye ilaahay ii soo fududeeyay inaan soo baxo, ma fahantay, oo jidkeyga dadkeyga aan ka mid noqdo. wallahi waxaa i bedelay aniga horta hore markaan gelaya nin yara ah, ma fahantay. inkastoo ani aan ku qanacsanayn wax walba ay suubinayaan, laakiin ani shakhsi ahaanteeda hadda waxaa iga soo kaxaysay inaan danteedii iyo dadkeyga aan ka mid noqdo. dadka awal hore waa ka faquuqnaa, ma fahantay. marka danteeda inaan qabsado dadkeyga ka mid noqdo, qof bartilmaameed aanan noqonin, oo nin dadkiisana la joogo oo nabad iyo nolol dadka kula noolaa. bisha Ramadaan waxaa ka codsanaya dadka qofkii oo aniga dhibaato mise aan u geystay mise wax dhibaato aniga gacan aan ku lahaa, intaas aan soo shaqaynaya in dadka bisha Ramadaan fadligeeda in ay u caafiyaan, ma fahmino. anigana ilaahayna oo si uu igu soo waxay ilaahay ku mahadsan, ma fahmino. anna waxaas dambe inuu ilaahay igu celin, ma fahantay. cabdi nuur mooge oo ah afhayeenka wasaaradda amniga Jubbaland ayaa fariin u diray dhalinyarada al-shabaab ku jirta, isagoo ku ammaanay Sharmaake go'aanka geesinimada leh ee uu qaatay inuu kaga soo baxo al-shabaab. dhanka kalena gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka Xaliimo Ismaaciil Ibraahin ayaa ku baaqday in guddigooda laga raro xarunta ay haatan ku shaqeeyaan oo ku dhex taalla madaxtooyada Soomaaliya kadib markii caqabado ay soo wajaheen guddigooda.
waxay dalabkeeda saldhig uga dhigtay in aan lagu soo booqan karin xafiiskooda oo ay ku adag tahay dadka ay wada shaqaynta kala dhexayso siday u soo gaari lahaayeen xaruntan iyadoo tilmaamtay in arrintaas ay ka mid tahay caqabadaha ku horgudban hawsha guddiga xaliimo yarey oo ka hadlaysay arrimaha doorashooyinka ayaa meesha ka saartay in dowladda Soomaaliya iyo maamul goboleedyada ay awood u leeyihiin inay iclaamiyaan xilliga rasmi ahaan ay dalka ka dhacayso doorashada iyadoo tilmaamtay hawshaas inay qayb ka tahay shaqada guddiga hoggaanka qaar ka mid ah xisbiyada siyaasadeed ee dalka ka jira ayaa horey shaki uga muujiyay shaqada laga filan karo guddigan maadaama ay dhex degan yihiin filla Soomaaliya oo madaxdeeda mar kale ay danaynayaan inay u tartamaan doorashada dhacaysa 2021 dhanka kale qorshe Axmed Madoobe uu damacsan yahay ayaa si xoogan looga hor yimid qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ee ka soo jeeda deegaanada maamulka Jubbaland ayaa ka hadlay qorshe ay sheegeen in madaxweyne Axmed Madoobe uu ka damacsan yahay soo xulista xubnaha baarlamaanka xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Xidig oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo ka mid ah musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxweynaha Jubbaland ayaa sheegay in aysan ku qanacsaneen habka la doonayo in loo soo xulo baarlamaanka cusub waxa uu sheegay in isaga iyo dadka ku aragtida ah ay ka digayaan in faragelin lagu sameeyo doorashada madaxweynaha iyo xildhibaanada baarlamaanka maamulka Jubbaland odayaasha dhaqanka ayuu tilmaamay inay doonayaan in loo madax banaaneeyo soo xulista xubnaha baarlamaanka maamulka Jubbaland xildhibaanku waxa uu tilmaamay in golaha ay ka soo horjeedaan qaabka xulista xildhibaanada hadda loo wado taasoo ah in beel kasta ay guddiga doorashooyinka u soo gudbinayaan 3 musharax oo u tartamaya xubinimada baarlamaanka si midkii ay doonayaan ay ugala baxaan golaha isbedel doonka iyo marxaladda hadda la gelayo marxaladahaas oo runtii ah marxalado xasaasiya waxaa goluhu shirkiisa ku falanqeeyay xulitaanka golaha baarlamaanka sida ay muhiim u tahay in odayaasha dhaqanku ay lahaadaan fursadda muhiimka ee ay ku soo xulayaan golaha baarlamaanka Jubbaland waxaa goluhu isla qaatay hoostana ka xariiqay inaan marna la aqbali karin in 3 xubnood iyo wax la mida la keeno oo la soo gudbiyo oo guddiga doorashada loo gudbiyo oo goluhu ka digayaa in faragelin lagu sameeyo habraaca doorashada wuxuuna goluhu runtii bogaadinayaa in odayaasha dhaqanka salaadiinta loo madax baneeyo xulitaanka dhaqanka Soomaalida inaan meel lagaga dhicin beelaha meel lagaga dhicin wax xal ah oo ku jira 3 in la soo qoro ma jirto beelshii 2 xubnood leh labadeeda xubnood inay soo qorato goluhu wuxuu adkeynayaa iskuna bogaadinayaa in laga wada qayb qaato amniga guud ee Jubbaland doorashadu ay u dhacdo si nadiif ah oo xalaal ah oo xor ah si wanaagsan loogu tartamo isla mar ahaantaana cidii ku soo baxda lagu la shaqeeyo waxaan ugu baaqaynaa murashaxiinta oo uu ku jiro madaxweynaha hadda xilka haya sida la filayo inuu murashax noqdo in doorashadaas si hagaagsan oo habsamiya oo faragelin lahayn oo buuq lahayn oo aan lahayn musuqmaasuq oo aan lahayn maxaan ku yiraahdaa wax isdaba marin in loo qabto oo golaha salaadiinta dhaqanka Soomaaliyeed ay barnaamijkooda la yimaadaan xildhibaanadooda soo xushaan doorashaduna ay u dhacdo sidaas guddiga doorashada waxaan ugu baaqaynaa in aysan faraha la gelin siyaasado iyo qorshayaal aan sax ahayn aan la aqbali karin aan la qaadan karin doorashada inay hogaamiyaan waxba kama qabno gudinimadooda waxba kama qabno laakiin faragelinta qaarkeed ee ah 3 baa la keenayaa midna waa lagala baxayaa shacabka Soomaaliyeed ma ogola salaadiinta Soomaaliyeed ma ogola beelaha Soomaaliyeed ma ogola murashaxiintu ma ogola bulshada reer Jubbaland ma ogola waxayna noqonaysaa meel ka dhac markii ugu horeysay oo dhaqanka Soomaaliyeed la baabi'iyo ayay horseed ka noqonaysaa haddii hawshaas lagu dhaqaaqo waa ka digaynaa Soomaaliya waxa u fayo waa dhaqanka iyo odayaasha iyo ixtiraamka ay mudan yihiin arintaas aan bogaadinaynaa shacabka reer Jubbaland waxaan ugu baaqaynaa inay amnigooda ilaaliyaan midnimadooda ilaaliyaan gacmaha isqabsadaan aan la kala qaybinin ciidamada reer Jubbaland sharaf iyo karaamay mudan yihiin ixtiraam bay mudan yihiin waxay mudan yihiin dhiirigelin waana ku bogaadinaynaa hawsha ay dalka u hayaan waxaan u rajaynaynaa in ay gutaan waajibaadka ka saaran sugidda amniga iyo inaanay siyaasadaha jira doorashada ku saabsan
aan lagu dhexmilin isla marhaantaana loo adeeg. dhanka kale Somaliland ayaa war kulul ka soo saartay hadalkii ka soo baxay gudoomiyaha Xaliimo Yarey maxamed muuse diiriye wasiirka wasaaradda warfaafinta Somaliland oo la hadlay warbaahinta ayaa ka jawaabay hadal ka soo yeeray gudoomiyaha guddiga doorashooyinka qaranka Soomaaliyeed kaasi oo ahaa in doorashada qof iyo codka ah ee Soomaaliya ka dhici doonta ay sidoo kale ka dhacayso Somaliland. wasiirka wasaaradda warfaafinta Somaliland maxamed nuur diiriye ayaa nasiib darro ku tilmaamay warka ka soo baxay guddiga doorashooyinka qaranka Soomaaliya isla markaana wuxuu sheegay in aan loo meeldayin hadalkii ka soo yeeray gudoomiyaha guddiga madax bannaan ee doorashooyinka Xaliimo Ismaaciil. sidoo kale wasiirku waxa uu qoomamo ka muujiyay wadahadaladii ay la galeen Soomaaliya. Xaliimo Ismaaciil Xaliimo Yarey ayaa sheegtay in Somaliland ay qayb ka tahay doorashada la filayo in sanadka 2020 ay ka dhacdo Soomaaliya. oo idinkoo Soomaaliya heshiiya oo idinkoo Soomaaliya ah heshiiya oo isu tago oo 50 meelood iyo 60 meelood oo kala fadhidaan ka baxo mid noqda wadahadalkaanu idin la furaya mararka qaar qalad noqonaya idinkoo 5 ah inay mid kaliya nala hadasho 5 oo kala fadhidaan leeyahay runtii daraarta go'aanka aan la qaadanay oran maayo ma jiro oo dawladdeedii way qaadatay hase yeeshee qaabku ahaa qaab roon mu ahayn sababtoo ah ismabaanan soo eeganeen leeshan bay u kala fadhiyaan qolada Muqdisho uun labaanaan iyo tanina kolba labaanaan marnay isu tagadaas ma hayn lahay hal qodob aan sheegay 28 sano in faraq saysanaay ilmaada reeyal isku tashada oo wax noqda waan idin ku ducaynaynaa waxaan maanayaa ummadaha dhageysanaya kale reer Soomaalida kale shantii Soomaaliya ka mid ah markaan hadlayna in uu hadalkaygu waxa ka taro qaar walba uu ducaynaynaa waxaan leenahay Ilaahay haydin barakeeyo Ilaahay khayr haydin siiyo Ilaahay haydin mideeyo iyana farqayna hasta qaar walba hawaariya haar beelka noola taagay war labadaas masuukiin mid baaban leeyahay Soomaalida kale wasadexdii Soomaaliya kale Djibouti ka mid tahay kil ka mid yahay NFD ka mid tahay warmarkana kala gaaro wuxuu sheegay shantaanu deedeena saddexdiinuna ka mid ahaydeene oo sheego waxaad ku tiraahdaan war shantayaduba doonidaasay ku jireen Ilaahun bay idin kulmiyay sii daaya saddexdeedu waan ka tagnay inta ku dhaha ilmaha reer u sheegay oo idinka laftiin ila waa tashateene anagu intaan u tagnay baa 30 sano iyo 28 kana ku jiraba dhibaataan ku jiraa 30 kaanu la joognay dhibaato xukun baan ku jiray 28 kana aanu maanta ku jirana dhibaato faraq haysi baan ku jiraa nasiidaaya walaalayaal haddii ay intaasi dhaafto waryaan dhibaato ina dhex marin dib yaan inoo dhex marin oo ha noo soo jiidina gacan dambe ha noo soo jiidina aan qaadno. dhanka kale madaxweynihii hore ee Galmudug ayaa taageeray qadiyadda Somaliland. madaxweynihii hore ee maamulka Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa ka mid noqday siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee ka hadlay dabaaldega 28 guurada ka soo wareegtay markii Somaliland ay ku dhawaaqday in gooni ay uga goosatay dalka Soomaaliya. Cabdikariin Guuleed ayaa sheegay in qadiyadda Somaliland ay tahay qadiyad aan marnaba indhaha laga qarsan karin. Cabdikariin Guuleed ayaa sidaas ku sheegay qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka waxaan u dhignaa sidani qadiyadda Somaliland waa qadiyad aan marnaba indhaha laga qabsan karin una baahan in lagu wajaho go'aan iyo geesinimo u dhiganta mugga iyo xajmiga ay leedahay waayo waa qadiyad 30 jirsatay dib u dhiska hanaanka dawladnimada ee Soomaaliyana wax weyn ay kaga xiran yihiin ayuu yiri. deegaanada Somaliland ayaa maalintii Sabtida ahayd waxa looga dabaaldegay xuska 18 May oo ah 28 guurada ka soo wareegtay markii Somaliland ay ku dhawaaqday inay gooni uga goosatay dalka Soomaaliya intiisa kale. balse muddo 28 sano kadib Somaliland ma aysan helin wax aqoonsiyo iyadoo ku naaloonaysa nabadgelyo ballaaran ee geedi socodka dimuqraadiyadda. dhinaca kalena shirkadda Google ayaa Soomaaliya u soo bandhigtay mashruuc internetka lagu gaarsiinayo miyiga iyo goobaha fogfog. marayaha hay'adda isgaarsiinta qaranka Cabdi Sheekh Axmed ayaa booqday xarunta dhexe ee shirkadda Loon oo ah mashruuc lama taana ah Google oo xaruntiisu tahay gobolka California ee dalka Mareykanka. maarayaha oo martiqaad rasmi ah ka helay Loon ayaa la kulmay madaxda ugu sareysa shirkadda Loon oo warkacayay maamulaha Alistair iyo mas'uuliyiinta waaxyaha sharciyada horumarinta ganacsiga iyo howlgallada.
waxaanay ka wada hadleen sida Soomaaliya ay uga faa'iideysan karto farsamadan casriga ee internetka lagu gaarsiin karo goobaha fogfog iyadoo qaybo ka mid ah dalkeena Soomaaliya weli uusan wada gaarin adeeg internetka. maareeyaha ayaa intii halkaasi uu joogay waxa uu booqday qaybaha kala duwan ee shirkadda gaar ahaan goobaha lagu farsameeyo qalabkan oo ah mid dul sabeynaya 10 ilaa iyo 20 kilomitir joog ka sarreeya oogada dhulka oo bixinaya internet xawaarihiisu gaarayo 4G. mashruuca Loon waa dadaal ay Google ku doonayso in internetka lagu gaarsiiyo meelaha aysan gaarin isgaarsiinta caadiga ah waxaana iskaashi la sameeyeen shirkadaha isgaarsiinta ee adduunka si ay gacan uga geystaan fidinta adeegga internetka. maareeyaha oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in farsamadan ay muhiim u tahay dalkeena Soomaaliya maadaama adeegga internetka uu weli ku kooban yahay magaalooyinka welina uusan gaarin miyiga iyo meelaha fogfog ee dhulka buuraleyda ah ee ku yaala xeebaha badda cas iyo badweynta Hindiya. maareeyaha ayaa intaasi ku daray in mashruucani uusan ahayn mid la tartamaya shirkadaha isgaarsiinta balse uu yahay mid la shaqaynaya shirkadaha oo u fududeynaya inay adeeg internet gaarsiiyaan meel kasta oo xilligan aysan gaari karin anteenooyinkooda. mashruuca Loon oo soo socday 5 sano ee la soo dhaafay ayaa laga hirgeliyay dalal badan oo ay ka mid yihiin Kenya, Puerto Rico iyo Sri Lanka. halka warkaasi aad ka daawanaysaan oo channelka dabagalka wararka haatanna Abiy Ahmed ayaa dad casuumay balse lacag qaali ah ayuu kaga gaday cashadii. ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa casuumay 200 oo ruux oo isugu jira ganacsato iyo dad matalaya ururo isagoo u diyaariyay wax loogu yeeray cashadii ugu qaalisanayd ee dalkaasi laga cuno. martida ayaa laga qaadaya $173,000 Mareykanka si ay u cunaan cashada lagu diyaariyay xaruntii hore ee 100 milyan. ujeedada cashadan laga lahaa ayaa ahayd sidii loo xaqiijin lahaa 1.1 bilyan oo dollarka Mareykanka si loogu habeeyo magaalada Addis Ababa. mashruucan qurxinta ee Shegar ayaa laga rabaa in lagu nadiifiyo wabiyada, dhismayaasha iyo goobaha nasashada ee caasimadda. warbaahinta Fana ee dowladda la xiriiriyay ayaa Twitterka soo dhigtay sawirka miiska cashada iyo sida la rabo in Addis Ababa ay u ekaato marka mashruucan la fuliyo. guud ahaan war wixii dal iyo daafac caalamka naga soo gaaray oo aad ka daawanaysan channelka dabagalka wararka waa naga inta. haddii aad nagu cusub tahay ku soo biir channelka adigoo subscribe saaraya kana mid noqo saaxiibada joogto oo hela 24 saac wararka halkan aan ku baahino. ku mahadsanid in aad nagu soo biirtay.